بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. جمعيه كهرية ayaa waxaan soo bilownay arrin barbaarinta ama tarbiyada meesha ugu fiican ee dadka lagu tarbiyeeyo waa quraanka marka inaan khudbooyinkeena aan ka dhigno qayb kamid ah inaan suuradaha quraanka aan ku soo qaadano waxaan soo bilownay marka sidii inagoo tafsiir akhrinayno kale ayaan khudbada waxaan u soo bilownay suuradan la yiraahdo qaaf oo ah suntii suurad meelo badan taabanaysa nabiga sallallahu alayhi wasallamna yani aad minbarka ugu akhrin jiray si dadku ay cibra qaadasho iyo waana ay ugu noqoto maxaa yeelay waxyaabo badan ay suuradu tilmaamaysaa marka haday jumcad tahay iyo haday ciid tahayna uu ku tukan jiray oo uu akhrin jiray ilaa dadka qaar ay ka yiraahdaan ku celcelinta nabiga uu suuratu qaaf ku celcelinay minbarka ayaan ka xifdinay ayadoo dhanba meel aan gaar uga baranimay jirin afkiisu maan ka xifdinay suu ugu celcelinay taas oo ku tusaysa ahmiyada ay leedahay marka khudbadan jimcahan waa tii aan ka maqnaa oo xagaasi Nairobi ayaan jiray laakiin jimcihii ka horeeyay ayaan suurada bilowgeeda soo qaadanay saddex arrimood oo muhiim ah oo diinta asal usuusheeda kamid ah oo dadkii quraanka markuu soo dagaayeen ay diidanayeen quraankuna uu u sugaayay ayaan soo qaadanay oo ahayd inay inkirsanayeen ilaahay waaxidnimadiisa inay diidanayeen rasuulka inuu rasuul yahay oo ilaahay quraan uu soo dajiyay iyo in laysa soo bixin doono inay diidanayeen oo aayadii hore ay ka hadlaayeen qaaf wal quraan al majid بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيضا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يعني أرمهاس أيان سوق هذا سورة أيان نسيودنا ومركي موضوع عصر قبحه إلهي دنوحو كهالله يا إنسان كان أرنتي سؤاله بدن سويدية هدي وصن قرآن كلام نولاننا جوابها وأسقوا يسسينا إنسانكو وكل ما يمل علان وكسر دعايه مركي القرآن كعنوت المامي إلهي وحلاه ولقد خلقنا الإنسان إنسانك وان أبورني ونعلم ما توسوس به نفسه نفتي سوحة أوشيا كين يسوي جذها كويس ستوي كوس واسنا سنة وان أجنه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حدث كأرورها اللي هذا حوالها مركي لجورعة إن لجرا أي تاي أنت كجرنا أنك أيا أقبل ومعناها وحنا يقرص المجرو وإلهي سبحانه وتعالى هذا الكدي كله يراهده يهدي هوس لو يراهده يهديها بين للسمايو يهدي مالين للسمايو أكتيس وأسكمت سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارم بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنسان والبنا وحالة دبدك وارديال العالية ووحى الله وحو السماينا يكسو قراء وملائك أو كراما كاتبين لإلهه مركا إنسان كساسانو أبورني إنسان كإلهي وساو أبوري أيام مدح أضيق إنسان كوحلا يابله markuu xoogaa yaro weynaado oo aqli uu yeesho xoog uu yeesho ayaa xoogiisi iyo aqligiisi wuxuu dib ugu soo jeesanayaa inuu ku inkiro ilaahay abuuray markaas waxa soo baxay kuwa la yiraahdo mulxidiin oo dhahayaan wax la rumaysan yahay oo ilaahay baa wax sameeyay ah ma jirto bariga hore umada kale iyo meelo kale ma ka fiin jirnay hadda Soomaalideena yaani marka qaarkood waxaad ku arkaysaa social media iyo waxyaabaha lagu soo qoraayo kuwas af Soomaali ku qoraaya oo Soomaali ah oo hadana inkirsan ilaahay jiritaankiis oo inuu ilaahay jirada yaani aan ogolayn marka dadku soo dhumaan laana dadku waxyaabaha soo dhumanay waxa kamid ah yaani social media oo yaani waxa walba la soo gelinayo yaa intay dadka qaarkii wareereen iyo waxyaabo waxa iska soo gelinayaan yaani aad u foolxun oo inkiraad ah ilaahayna inkiraana wax cusubna ma ahano nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa nin ayaa u yimid hadda koor markaas wuxuu soo qaaday laf ayuu soo qaaday laf xoolo soo qaaday oo cad oo baabacday mar hore neef dhintay ah lafti baa intuu qaaday oo uu jajabiyay oo ridqay ayuu wajiga nabi intuu hor keenay ayuu budadii uu soo jajabiyay lafta ahayd ayuu nabi ku afuufay markaas wuxuu ku yiri ya Muhammad ataz'umu anna Allah sayab'athu hadhi ma waxay kula tahay laf saan oo kale u dhamaatay oo u baabacday oo saan aan u afuufay haween geliyay inuu ilaahay soo noolayn karo ama uu soo bixin karo ma taasay kula tood sheeganaysaa markaas ilaahay uu soo bixinayaa adigana uu ku soo bixinayaa naartuuna ku gelinayaa walaa waxyoon moogto qof saa u hadlay yaani inuu khaatimo oo soo gelin oo iimaan uu heli doonin ayaa loo sheegay naarta lagu gelinayaa markaas ilaahay wuxuu soo dajiyay aayada dhahaysa awwal yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin insaanku miyuna arkaynin inaan ka abuurnay biyo daciif oo aan xoog lahayn oo waxba ahayn aan ka abuurnay fa idaa huwa khasiimun mubin
markuu xoog yeesho oo wax kala gartaba dooduba la soo taagan yahay doodiisuna xadda وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ما هو نصو قادنا يابا لفظ انتو سو قاتوبا نوجي جبينا يا إلهي لفتا يا صون ولين كرا ونسي خلقه أبو رستي سي هورنا ويلوي عسان حقو كيماضي مركز قال وحوري من يحيي العظام لف يان ولين كرا وهي الرميم أيضا باباري أو جبتي باليودي قل وحاد كتر هذا يحييها الذي أنشاها أول مرة الله مركز رسول أبوري أيا صون ولينايا maxay laftan ayadoo jirin ayuu Ilaahay jirsiyay marka Allihii jirsiyay inuu marka hadana soo jirsiyo wuxuu ahwanu alayhi walahu mathalu ala fi samawati wal ard wa yufudahi waxmana kuma ah marka mid inkirsan Ilaahay jiritaankiisa oo Ilaahay ma bajiro waxaan uu iska samaysmay yani oo mulhida kaas daliilna ma haysto waa qof dhumay waa qof baadiyoobay kaas oo kale wuxuu u baahan yahay in yani runta loo sheego Ilaahay waa kan Ilaahay suuxu abuuray hada khalqullah كون كان ودنا إلهي أبو الكيسة تاسنا الدليل وإلهي جريتان كيسة هدي أو إلهي جري لهين وحن إسكماين السماء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون حبينا جريون كواسا وحما يقينين مركا إلهي إنسان كساسو أبوري وحو نفتي سجودي سكوشة كيسان ووجه تاس مركا لجوه يا سيدتك الله تربية ما العلاقة لا يقبتها إلهي آكل وحسوب بيجي وحكويري وحي نفتي ما يكوشة كيسة تجودها وحيدين كجرة وحي بكو سو دعا ولو حسابايا لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله وحي غدينا كو سو دعا اما موجيه او بنانك كينا اما موجنين او غدها idin ku jiro marba haduu kugu soo dhacay waa lagu haystaa asxaabtii adeega la noqotay waxay yiraahdeen wax gudaha la ku soo dhacay oo adigu yaani ka koreeya awoodaada aan ahayn haddana waa lagu xisaabayaa adi meeqa wax kugu soo dhacaan adoo aan ku tala gashanay maskaxdaadun waxuna iskaga soo duulayaan hadii la ilaahay wixii kugu soo dhacay waa lagu xisaabayaa markaas ay waalidin xisaabayaa markaas ay rasuulka ilaahay taas ma noo xisaabayaa markaas wuxuu horta idinku ha noqon si reer banu Israa'iil oo yiraahdeen samicna waan maqlay wa asayna waan diidnay hadhiine horta bal ogolaada oo wixii nagu soo dhacay hadna lagu xisaabo idinku bal diyaar garoob horta markaas ay dhaheen waayo waan ogolnaa markaas aayada ka dambaysa Ilaahay soo dejiyo la yiri la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat yani Ilaahay wuxuu qofka tabartiisa ahayn ku kallifu maayo ee waxa loo haystaa wixii asagu shaqo ahaan uu qabtay wax ma kugu soo dhacay hadaadan waxaas ficil u bedelin looma haysto laakiin goobta lagu haysto waxay tahay markaad ficil u bedesho wixii aad samayso marka qofku wixii asagu sameeyo waa lagu xisaabinayaa mas'uulna uu ka yahay tasarrufaadkiisa markaas tarbiyadaas ay qaateen samicna wa adana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ay yiraahdeen sidii ayaa marka aayadaas loogu soo dejiyay wixii idinku soo dhaca hadayna idinku ficlaan u bedelin la idin ma haysto aayadaas ka dambeysay marka insaa horta loo ogaado mid kale waxa qayb ahay waxa aynu ku hadlayno waxa la yiri yani ونعل ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يعني قرب بها ملك تيبدح ده ملائكة يا كفر لسه والرقيب عتيد ويراده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا هذا يراده إنسانك ولو قرايا مركا ينجوجنو سو ما بهنا أنا أسكت تربيينه هذا الله حنحن كا أما دتك العين أيو أما دتك على جيش أيو إن أنا عرب كنا كيرا شنو ومعاد بن جبل مك حديث كده يرى له صوت نافي ولا سو آخرين يا النبي أنتوا عرب كي سقبت أو سوبح يا وحكوري مت كان إسكاي لا المعايو مركا سو حكوري رسولك لا يو waxa aan ku sheekaysan ama aan ku hadlayno miyana loo qabsanaya markaas wuxuu ku yiri fakiradka ummuka ya mucaad hooyada ha ku weysee dadka waji ama sansan naarta ma loogu tuura illa carabkooda waxay ku goosteen ma ogi marka xadiis kale wuxuu ahaa qof inuu kelimo ku hadlaayo asoo aan ugu talagelin kelimo fiican oo Ilaahay ku raali gelinaya ayuu iskaga hadlay markaas Ilaahay darajo kor ugu soo qaadaya كلمة وصل كسوقات واركيني واحد بيس وصل واركيني وإلهي وكعروناينا مرمرة يكوه الله يا مركز النار توحى طورا يا تضباط سنة ما لا صعده أيو النار تكوه بنايا مركز اللي يسأله ولي بهذا وحى يعني بريورة كذا درنتاي بريورة أصحابته يجوجين هذا الكل واحد لو حجاري جريون أنت مركز مقليس أو اسكمال يجوجانه أنت هذا بجاه كم مقليس لكن هذا الكل يراهو أنت السوشيال ميديا سوى حدقه يا وحى أما أركايا أما مقلايا adduunka oo dhan waxa dad jooga marka day dambi noqotana inta qof ay aragtay dambigooda ayaa qofkii lagu raraaya hadii kelimo fiican oo khayr ay noqotana inta dad ay fiirsatay ajirkooda oo kale ayuu leeyahay
marka waa silaax duu xadayn in xagga khayrkana loo isticmaalo xagga shartana la iska daayo oo aan dadka la caynin dadka qaarkood waad ka shakinaysaa waxa ay soo qorayaan ama sawirada ay soo dhigayaan inay muslim yihiin iyo in kale maxaa yeelay wax yani aad u foolxun qof waxay soo sawirayaan maalan oo ama qof ama mas-uul ah ama qof yani markaasi qof wanaagsan ah ama qof kale ah oo intay ama qaawiyaan isaga dhanba ama maxay ahayd si kale ka dhigaan ama hadduu nin ahaana naag ka dhigaan hadday naag ahaydna ay nin ka dhigaan ayay wax iskaga soo waana Soomaaliyeed waxa samaynaya waxaad u malaysaa marka waxaan meeshan lagu samaynaayo inayna malaa'ig qofka ka qoraynin oo la yiri waxaad rabto waad si qori kartaa oo qofka uusan xisaabtamayninba marka bal in dib la isugu noqdo la yiraahdo dhalinyarada gaar ahaan waxa aad ku hadlaysid iyo waxa aad qoraysid iyo waxa aad sheergareynaysid kulligood haddii wax xun uu yahayna dembigiisa ayaad qayb ka tahay haddii wax fiican uu yahayna ajirkiisa aad qayb ka tahay marka waxaa jirana in la shaqaysto dembina aan lagu dambaabin ayaa loo baahan yahay